kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid muuqaalada iyo sawiradii ugu horeeyay oo laga helay askarta loo qaaday dalka Eritrea oo si weyn u qabsaday baraha bulshada kana farxiyay waalidiin badan. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud muxuu kala kulmay askartaasi? Somaliland waxa ay beenisay inay ka qayb gashay kulan ee Israa'iil qabatay iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo qorsheynaya inuu baarlamaanka kala hadlo xiriir la yeesho Israa'iil. iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawan doontaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo waji kale u yeeleen dagaalka ka soconaya dalka Ukraine. qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu waaweynaa warka janalka Hubal News. fadlan daawada dad ku cusubtaa janalkan kusoo biro ka mid noqo saaxiibadeela wararka joogtada ee aanu halkan ku baahina aragtidiina halkaas noogu reebo muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina laagtiinana waa inoo muhiim haatan kusoo dhawaado qodobada maqasheen oo faahfaahsan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali ku guda jira booqashadiisa 4 maalin ah oo uu ku joogo dalka Eritrea taas oo bilaabatay maalin ka hor ayadoo uu wehlinayo madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa ayaa booqdeen isla markaasna u kurgaleen xubno kamid ah askarta Soomaalida ee dalkaasi ku qaatay tababarka socda 3 sano. madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay askartaasi oo sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday muujinayaan ayagoo sita calanka Soomaaliya isla markaasna safaf dhaadheer ku jira. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u hambaliyay ciidankan tababarka dhameystay wuxuuna hoosta ka xariiqay in la filayo inay xoojiyaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda Eritrea. waa markii ugu horeysay oo si rasmi ah loo arko muuqaalka askartaasi tan iyo markii tababar loogu qaaday gudaha dalkaasi muddo ku dhow 3 sano ka hor ayadoona walaac badani uu ka jiray xaaladooda. madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaana sidoo kale kormeereen mashruucyo dhowr ah oo horumarineed oo ka socday gobolka koonfureed ee dalka Eritrea waxaana kamid ah biyo xireenka Logo iyo Mislam, mashruucyo beereed goobo laga dhalinayo korontada iyo warshado laga soo saarayo caanaha. si kastaba sawirada iyo muuqaalada lagu baahiyay baraha bulshada ee askartaasi la xiriiray ayaana saacadii aanu kasoo gudubnay si weyn baraha bulshada iskula wadaagayeen bulshaweynta Soomaaliyeed. arrinkan ayaana la sheegay inuu ka farxiyay waalidiin fara badan oo caruurtooda ku maqneed gudaha dalkaasi isla markaasna muddo shaki badan uu kaga jiray nolosha caruurtooda. xog uu helay Hubal News ayaana sheegay in arrinta ugu weyn ee madaxweynaha u tagay Asmara ay tahay u kurgalida iyo qiimeynta xaaladda ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyay dalkaasi 2 sano ka hor iyo sidii dib dalka loogu soo celin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. madaxweynaha ayaana doonayay inuu ogaado baahiyaha ciidanka iyo haddii ay jiraan caqabado hortaagan dib u soo celinta ciidankaas taas oo uu kala hadli doono madaxweynaha Siyaas Afwerki. askartaas ayaana tiro ahaan dhan ilaa 5,000 oo askari waxayna dalkaasi ku sugayeen in ka badan 2 sano wuxuuna Xasan Sheekh hore u ballan qaaday inuu dalka ku soo celin doono. geesta kalena Somaliland waxa ay beenisay inay ka qayb gashay kulan ee Israa'iil qabatay halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu qorsheenayo in baarlamaanka kala hadlo in xiriir la yeesho Israa'iil. afayeen u hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Sabtidii sheegay in xukuumadda lagu wado in ay baarlamaanka kala tashato suurtagalnimada xiriir diblomaasiyadeed oo ay la sameeyso Israa'iil sida ay ku warantay warbaahinta qaar. xaqiiqda warbixinta Channel 22 News iyo sidoo kale warbaahinta qaar lama xaqiijin karin dhab ahaantii. warbaahinta Soomaaliya ayaana bishii hore sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaan xiriir la sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil xilli uu safar ku joogay Imaaraadka Carabta isagoo xitaa u duulay Israa'iil sida lagu sheegay warbixinta. wararkaas waa ay iska diiday xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Xasan ayaana sanadkii 2016 si qarsoodi ah la kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Israa'iil Netanyahu xilli uu ku guda jiray shaqadiisii ugu horeysay ee xafiiska taas oo ku ekeyd 2017 markii dib loo doortay bishii Maaj ee sanadkan. Xasan Sheekh Maxamuud diblomaasi Soomaaliyeed oo aad iskugu dhow yihiin Xasan ayaa u sheegay The Times of Israel in dib u soo laabashadiisa xukunka ay horumar wanaagsan u tahay hanaanka horseedi lahaa xiriir dhexmara Israa'iil iyo Jerusalem. Israa'iil ayaana xiriir diblomaasiyadeed la lahayn dalkan ku yaala bariga Afrika ee loo doortay hogaamiyaha Xasan Sheekh kaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 16 milyan oo qof. Soomaaliya oo ah dal muslima oo ahna Sunni isla markaasna xubin ka ah jaamacadda Carabta ayaana weligeed aqoonsan xukuumadda Israa'iil. waxaa jira warbixino teel oo soo baxay sanadihii ugu dambeeyay oo ku aadan xiriirka sii kordhaya Israa'iil iyo Soomaaliya.
shirar heer hoose ah ayaa lagu qabtay magaalada Qudus bishii December sanadkii 2015 kaas oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socda wasaaradaha dhaqaalaha iyo mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliya sida uu sheegay sarkaal sare oo ku dhow Xasan Sheikh. Warbixintan ku saabsan suurtagalnimada in xukuumaddu uu hogaamiyo Xasan Sheikh ee Soomaaliya ay xiriir la yeelato Israel ayaa ka soo horjeeda xiriirka rasmiga ah ee Israel iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta oo ay la yeelan karaan iyo sidoo kale dadaalka ay Israel ku xoojinayso xiriir ay la leedahay Afrika. Marka laga soo tago isbedelada ka socda Soomaaliya, Channel 22 ayaa sheegay in Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland oo ah mas'uul madax bannaan oo gobol xasiloon oo ka mid ah Soomaaliyana ka taliyo uu dhawaan u sheegay saraakiil Mareykan inuu ku wajahan yahay Israel balse aan wax jawaab ka bixin. Bishii May, safaaradda Israel ee Faransiiska ayaa soo qaban qaabisay shir lagu casuumay suxufiyiin Faransiis iyo Afrikaan, diblomaasiyiin, ganacsato iyo fanaaniin si ay u eegaan mustaqbalka iskaashi iyo ganacsi ee dhexmara Israel iyo Afrika. Kulankaas ayaana la sheegay in Somaliland ay ka qayb gashay waxaana ku matalayay wasiirkooda gaashaandhigga. Haddaba Somaliland dhankeeda durbaba waxa ay jawaab kulul ka bixisay warkaasi ku aadan inay ka qayb gashay shir ee Israel soo qabanqaabisay oo ka dhaca dalka Faransiiska. War lagu baahiyay bogga wasaaradda difaaca Somaliland ayaa lagu yiri wararka beenta ah ee laga sheegay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waransal iyo raatoona lahayn ayaa lagu baahiyay wargeyska The Times of Israel kaas oo ay ku sheegeen wargeyska in wasiirka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Somaliland uu ka qayb galay shir looga hadlay iskaashiga Israel iyo wadamada Afrika. Waa been abuur cad oo marag madoona. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Ceente Friid ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay ka shaqeynayay baaliyiri howlaha qaran ee horyaala. Waxa uu ka mid ahaa guddiga qabanqaabada maalinta qaran ee 18 May. Waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka guddiga 18 May. waqtiga uu wargeysku ku sheegay in shirka uu ka qayb galay wasiirka waxa uu ku mashquulsanaa qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May. Wararka noocaana waxa loogu talagalay in lagu sumcadilo qaranka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaasna lagu waxyeeleeyo ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay Somaliland arrinkaasna si kulul kaga jawaabaysay. Dhanka kale heshiiska Abraham ee loogu magac daray oo ahaa baaq nabadeed oo si wada jir ah goor sii horeysay loo saxiixay September 15 2020 ayaa ahaa mid dhabaha u xaarayay xiriir diblomaasiyadeed ee Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Israel. Sidoo kale bishii December 2020 Morocco iyo Israel waxa ay qalinka ku duugeen heshiis lagu cadaadinayay xiriir dhexmara labadan dal kaas oo abuuray xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa. Kadib waxaa xigay Janaayo 2021 Suudaan ayaa iyaduna dhankeeda ku duugtay qalinka heshiis taariikhda galay oo ay ku muujisay rabitaankeeda xiriir dhexmara Israel iyo Suudaan iyadoona Suudaan ay cadeysay rabitaankeeda in ay wanaajiso xiriir ay la yeelato Israel. waagaga daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waji kale u yeeleen dagaalka ka socda Ukraine. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay sida weyn u adeegsadaan ciidamada Ukraine ayaa la sheegay inay waji kale u yeeleen dagaalka haatan ku wajahan caasimadda Kiev oo Ruushku wado. laba dagaal ayaan galaynaa ayuu yiri Dimitro oo ka mid ah ciidamada Ukraine ee jiida hore ee dagaalka ku jira. Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri dagaalka dhanka madaafiicda ah iyo mid aan u adeegsanayno tiknoolajiyada casriga oo aan hore u isticmaalin ayaan galaynaa. Master Dimitro wuxuu hogaamiyaa ciidan sirdoon oo ka kooban 10 oo si qarsoodi ah dagaalka Ukraine uga qayb qaadanayaan. Kooxdan uu hogaaminayo wuxuu jecel yahay in loogu yeero quwwada tiknoolajiyada ama IT-da. Askari ka mid ah kooxdaas ayaana warbaahinta ka tusiyay taleefankiisa gacanta diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo uu Ruushku leeyahay oo ay soo rideen. Waa natiijo wanaagsan ayuu yiri isagoo dhoola cadeynayay. askarta 10 ka kooban waxay hore uga soo dagaalameen magaalooyin ka tirsan dalkaasi oo Ruushku qabsadeen. Haddana waxa ay isku diyaarinayaan difaacidda magaalada Slovianski. dagaaladan hore u dhaxmaray Ukraine iyo Ruushka waxa si weyn loogu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ama kuwa meelaha fog laga hago. Ruushka iyo Ukraine labaduba waxay haystaan noocyo badan oo ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn. Ruushku wuxuu ku beesan yahay diyaaradaha loo yaqaan Orlan -10 oo isagu sameystay halka Ukraine ay haystaan diyaaradaha Bayraktar ee uu Turkigu sameeyay. diyaaradaha Turkiga ee Bayraktar kuwa kale
way ka qaalisan yihiin, laakiin waxaa sahlan in si fudud loo beegsado ama loo soo rido. ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isticmaala waxay u baahan yihiin barnaamij dhammaystiran oo ka kooban xirfadlayaal, dayactir iyo weliba bedelaad. ciidamada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka shaqeeya waxay awood u leeyihiin iyagoo ku sugan masaafo gaaraysa 2470 kilomitir inay jiida hore ee dagaalka ee la socdaan si dhaqdhaqaaqyada cadowga ay sameynayaan jawaab degdeg ah uga bixiyaan, ayuu yiri sargaal sare. Master Fedorov wuxuu intaa ku daray adeegsiga tiknoolajiyadda inay gacan weyn ka geysanayaan xogta dagaalka iyo in si degdeg ah loo gaarsiiyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida si go'aano degdeg ah uu gaaro. ciidamada Ukraine waxay aaminsan yihiin haddii ay gacanta u soo galaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay sugayaan uu gabi ahaanba waji kale yeelan doono dagaalka Ukraine, gaar ahaan kan ku wajahan caasimadda Kiev. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya, ciidamada Ukraine waxa ay si weyn u isticmaalayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo uu Turkigu sameeyay ee Bayraktar. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayaana door weyn ka ciyaarayay guulaha ay ciidamada Ukraine dagaalkaasi ka gaareen, isla markaasna waxa ay hore door uga ciyaareen meelo badan oo colaado ay ka jireen. dalalka iibsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkiga ayaana sii kordhayay muddooyinkii ugu dambeeyay. in ka badan 15 dal ayaana la rumaysan yahay in ay dalbadeen diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee uu Turkigu farsameeyay. guud ahaan daawadayaal wanaagaysa warkii waad kala socoteen Hubal News. fadlan daawada dadku cusub tahay channelkan kusoo biro ka mid noqo saaxiibada ila wararka aan ku baahino, aragtidiina halkaas noogu reebo, muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina. laagtiinana waa inoo muhiim, waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka channelka Hubal News.